waxaan rabaa golaha guurtida su'aalkaa weydiiyo waxaad wax ka qortaa oo aad ka hadashaa golaha guurtida Somaliland adigoo bulshada ugu baaqa in la bedelo xubno cusubna la soo xulo maxaad ula jeedaa arrintaas qanciyo su'aal wanaagsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland waa golaha dalka ugu sarreeya si wanaagsan taariikh badan buna dalka ku lahaa si fiican waxa lagu aasaasay shirkii madaweyn ee SNM waxaana loo aasaasay inuu check and balance u noqdo golihii dhexe ee SNM oo khilaafkoodii batay kadib markii gudoomiye Axmed Jimcaale iyo Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Guray iyo Cabdiqaadir Koosar within 3 years wax gudahooda ay dhaceen oo khilaaf golihii dhexe SNM u hadhayay si ay check and balance ugu sameeyaan waana sababta markii la sameeyay keentay deganaanta siyaasadeed inuu Axmed Siilaanyo oo fikradda lahaa uu noqdo gudoomiyihii ugu muddada dheer ururka SNM golihii guurtidu markii la soo galay dalka 19 shirkii 93 boorama la isugu tagay waa la qarameeyo waa la mideeyo beelihii kala darafyada Somaliland baa lagu soo daray 82 xildhibaan weeyaan iyagiyo golaha wakiilada marka la isku daro waxay isku noqdaan 164 xildhibaan baarlamaan baa la isku yiraahdaa iyagu waa aqalka sare gudoomiyahooda gudoomiya maxaa shirka marka la isugu yimaado golahaasi dalka wuxuu kala soo dabaashay marxalado badan oo khilaafa gola aad u sharaf badan buu ahaa dastuurku wuxuu siiyay awoodaha inuu dawladda kala shaqeeyo nabadgelyada diinta iyo dhaqanka golaha wakiilada marka laga tago miisaaniyadda iyo ansixinta golaha xukuumadda wuxuu la wadaagaa shuruucda kale oo dhan golaha waxa ku jiray rag badan oo sharaf leh oo raggii lagu aasaasay kamid ahaa waxa kamid ah Sheekh Ibrahim Sheekh Yuusuf Sheekh Madar Allah u naxariiste waxa kamid ah Xaaji Cabdikariin Xuseen Xaaji Cabdiwaraabe waxa kamid ah Sheekh Muuse Goodaad waxa kamid ah Sheekh Axmed Nuux Furre waxa kamid ah Xuseen Cali Jaamac waxa kamid ah Dawiil Maxamuud Daalin waxa kamid ah Boosh Cadde waxa kamid ah Soomani Minbaris ehlo sharaf ah oo dalkan sharaf ku lahaa waxa kamid ah Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawharo isagu iskii uga baxay oo maxaa ahayd Sheekh Beledka Boorama golihii sidaas ahaa 93 markii la soo doortay 97 baa Hargeysa shirweyneedii dib loogu doortay 97 up to now waa 25 sano waa rubuc qarni inantii dhalatay maanta inanteedii baa inay guur gasho ku inankii dhashayna maanta isagii baa aabba dabcan raggii waqtigaa 97 soo galay iyo kuwii 93 soo galay iyo kuwii madaweyn ku soo galayba maanta waa gabaabsi golihii waxa soo galay dhalinyaro yar oo dhaxal ku yimi oo aan golihii meeqaamkiisii iyo haybadiisii buuxin karin Somaliland waxa ka dhacay laba doorasho baarlamaan oo golaha wakiilada aqalka hoose baarlamaanka mid waxa dhacday 2005 midna waxa dhacday sanadkii hore labada jeerba kordhin bay ku joogeen 25 ka sano waxa weeyaan waxa nasiib daraa Somaliland maadaama ay u guurtay dimuqraadiyad haddii aad qanciyo haddaad caano fresh soo maasho oo dambara oo neef dhalay oo ugub oo caanihiisu fresh inaad caana ka soo maasho haddaad ku shubto ka waran weel caana baqay ku jireen soo nasiib darama marka waxay ka dhigan tahay labadii doorasho 2005 dhacday iyo tii 2011 ka dhacdayba in caanihii fresh ka ahaa la maalay lagu dul shubay caana baqay taas waa nasiib daro Somaliland haysata golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland anu waxaan jecelahay oo aan maxaa qoraaladeyda ugula dagaalamaa in la soo xulo golo cusub oo golaha guurtida oo Somaliland yeelato midna waan maxaa dadka reer Somaliland waxaan doonayaa inaan u sheego golaha guurtida maxaa Jamhuuriyadda Somaliland waa in nidaam beelaha sida uu ugu fadhiyo waxa jira beelo badan oo kuraasta golaha wakiilada codkoodu aanu goonin waxa jira meelo badan oo sida sanaag bari oo kale maanta 7 ayay guurtida ku leeyihiin laakiin golaha wakiilada waxba kuma loo may codanin deegaanadoodina xukuumadda Somaliland wali may gaadhin waxa jirta deegaanka gobolka Sool sida degmada Laascaanood Xudun iyo Taleex dadkoodu si fiican isu diiwaan gelin golihii wakiilada waxay ka heleen 5 xildhibaan maanta 12 bay ku leeyihiin golaha guurtida isuma dhama xuduudihii inta Somaliland dastuurkeeda ku qoran marka waxaan aaminsan waxa jira beela aan cod ahaan goyn karin inay codkoodu inuu kursi wakiilada u soo saaro laakiin golaha guurtida kuraasi ku leh marka anigu waxaan qabaa sida ay u joogaan in beelaha dib loogu celiyo suldaanada iyo cuqaashu soo xulaan dadkan la bedelo lana qoro xeerkii haddii xubinta banaysa booska ee geeri ama is-asilaad ku banaysa qaabkii lagu soo xuli lahaa hadhow lagu soo buuxin lahaa in la sii qoro waqti badanna inaanay naga qaadan waxa jira xeerar badan oo la sameeyay oo qoran oo bandana oo golaha wakiiladuna aan sixin madaxweynuhuna saxiixin laakiin qabiyo qoraala
xeerarkaasi waxay sheegayaan in beeluhu soo xulaan madaxweynuhu guddi magacaabo guddigaasi maxaa ahaydee xarunteedu noqoto wasaaradda arrimaha gudaha liisaska maxaa ahaydee beeluhu soo gudbiyaan lagu xereeyo muddo 3 bilood gudahooda beeluhu sidaa ku soo xulaan dabeedna marka karateeriyadoodii waxooda la isla waafaqo maxkamadda sare loo gudbiyo maxkamadda sare madaxweynaha hortiisa ku dhaariso dabeedna ay sidaa ku noqdaan xildhibaano golo guurti dad badan baa jira reer Somaliland sida saraakiil badan oo ciidamada ah oo hawl gabay waxaa jira professor badan oo jaamacada waxaa jira dad badan oo helo sharaf oo dalka iyo dadka wax u tari lahaa oo waxaa jira culimo badan waxaa jira dad badan oo maxaa ahayd kale oo mudakar ah oo helo sharaf wal karaama oo dalka iyo dadka wax tari lahaa oo golaha guurtida buuxin lahaa qabaa'ilka Somaliland oo dhan golaha guurtida ku jira qabiil ku dulmani ma jiro marka waxaan leeyahay dagaalka ku saabsan golaha guurtida inaan sidan lagu eegana la soo doorto weeye waa tahay waxaan rabaa su'aalina ka weydiiyo xaalka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxaa jira wada hadallo Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay tan iyo 2012 oo soo bilaabmay kuwaas oo aan wax buuran oo micno lahayn ka soo bixin bal arintaa ka waran waa su'aal fiican qanciyow arintaasi waxay soo bilaabatay waxay ka soo dhalatay shirkii London Soomaalida loogu qabtay 2012 waqtiga Somaliland Zealandia madaxweyne ka ahaa Soomaaliya Sheekh Shariif runtii waxay ahayd fursad weyn oo bulshada caalamku ugu tabarucday inay qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya ku furdaamiso si fiican qadiyadaasi macal asaf markii London la isugu tagay waxa arintaasi ay ka murqacatay oo ka xumaatay xagga Somaliland si fiican laanu Soomaaliya iyadoo wax kama maqna si fiican iyadoo Soomaaliya wax ka maqan ma jiraan laakiin Somaliland iyada dee madax banaani raadinaysa iyada cidda wax ka maqayeen ay tahay Somaliland dadkay u diratay wada hadalladu dad fahamsan macnaha uu leeyahay political negotiation wada hadal siyaasadeed waliba masiiri dad faham u lama yahay wada hadalka fayskiisii koobaad Axmed Silaanya ma tegin guddi member of cabinet uu diray oo golaha wasiirada guddigaasi political mature ma yahay absolutely ma yahay dad qaangaar siyaasadeed dadkaasi waa dadka qalloociyay bahash Soomaaliyana waxa la yiri meelaan rabay roob ma igu helayo iyada dee wada hadalladu inay sii socdaan iyo waqti daayac iyada waxba kama maqan xaq bayna u lahayd inay iyadu dee maadaama iyadu ma ahayn tii Somaliland tilmaami lahayd Somaliland waxa wada hadallada waxa loo qorsheeyay inay time la yeeshaan oo muddo yeeshaan waxa la diyaariyay 7 dawladood oo wada hadallada mediators ka noqda dhexdhexaadiye 7 dawladood waxa la diyaariyay markii la isugu tagay London waxa la diyaariyay 7 dawladood waxa iska soo xileen 2 dawladood ayaa soo xilay labadoodii wasiir arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda dawladda Ingiriiska William Hague ee waqtiga iyo wasiirkii arrimaha dibadda dalka Norway inay shirka jaargareeyaan waayo dee 2 bulsho is haysaba meesha loogu garnaqay 2 bulsho is haysana shirka isuma gudoomiso waa loo gudoomiyaa waxa dhacday markaa markii waxa la diyaariyay security kala ilaaliyo labada tiim sidii shirkii Suudaan ka dhacday Nibaasha SPLM iyo qolada kale Khartoum la kala ilaalinayay nimanka waaweyn ee kalaabada ma garanaysaa personal security ayaa in la geeyo in la kala ilaaliyo waxa la soo diyaarsaday translatorska turjubaanadii qolo waliba in luqadeeda ku hadasho oo ku ceel baxdo maadaama waxaan ay tahay masiiri waynu ognahay inagu Yurub aan joognaayo markaad meel ka hadlayso arrin masiiri oo naftaada taabanaysa wax lagu oranayo luqadan mar haddaan aad ku hadlayso aanad maxkamad kaga doodi karin waa inuu joogaa turjubaan awoodeeda loo saxeexay inuu turjubaan yahay marka markay la isugu tagay London halkii laga filayay arrintu ma noqon raggii Somaliland iyo qoladii Soomaaliya ka timi laabta la iska geliyay waa la isku soo booday kalgacalto iyo farxad baa la isku salaamay dadna way yaabeen qolii shirka mediatorska waxay yiraahdeen dadkan isma hayaan dadna waxa lagu shirka miyaanu idin ku doominaa waanu idin jeer garaynaa sayidka isku filan ma anaga isku filan oo Soomaali baan noo wada hadlaynaa taas waxay sababtay in turjubaanadii la fasaxo waxay sababtay in la fasaxo maxay ahayd nimankii la oran jiray security guardkii waxay sababtay in la yiraahdo cid is haysa ma jirto taas waxay sababtay dawladdii marti gelinaysay shirka oo islahayd cid is haysaad u garnaqaysaa ee arrintan sumcad ku qaado dadkana wax kala dheh inay qajisho oo xishooto oo si ay samayso withdraw inay ka baxdo taas waxay sababtay inay tiraado haddaba waar mar haddaa idinkii wada hadlaysaan meel kale la aaya hadda fahmaysaa
somaliland halka weaknessku kaga yimi waa halkaa dalka britain waa dal soomaaliya saameyn weyn kala guud ahaan somalilandna taariikhdeeda yaqaano soo gumaystay soomaalida kalena saameyn weyn ku leh waa dal security councilka ku jira waxa uu maxaa hadeen cidda uu dhexdhexaadiyo iyo wuxuu soo saaraana sideeda sharci u tahay waayo waa shantii golaha ammaanka ee fiitooga lahaa somaliland markii taasi dhacday ee ingiriisku yidhi waan ka baxayaa meel kale la aada dal ay soomaaliya ay aad saaxiib yihiin especially dowladda imika dhacday farmaajo oo gadar la yidhaaho ayaa soo barabowskareeyey laba waddan labada waddan waxay kala ahaayeen turkiga iyo maxaa ahaydeen iyo bakistan turkiga bakistan baa lasoo barabowskareeyey inay shirarka marti geliyaan wixii dambe loo raro gadar baa ka dambeysay soo indhooriskareynaysay shirarka markii la isugu tegay london ee labada waddan lasoo indhooriskareyey ergadii somaliland ka socotay waxay ku guul daraysatay waa kuma turki turki waa kuma ha turki waxa weeyaan dal laba option bay somaliland ku doodaa option waxay tiraahdaa madax bannaani baan rabnaa optionna waxay tiraahdaa dowladdii maxamed siyaad barraa genocide nagu samaysay xasuuq turkigu labadaa qodob halkuu ka taagan yahay inay taa isweydiiyaan be turkigu labada qodob midna lama tuso liannahu 20 milyan kurdiina buu haystaa oo madaxa kaga taagan yahay oo xitaa markuu gobolka isagoo haysta ka gudbo ciraaq kula dagaalamaya syria kula dagaalamaya iiraan kula dagaalamaya marka taqriir almasiir iyo dal doonayo inuu go'o dal kale ka go'o lama tusi karo يعني waxay inay taa eegaan ninkad gartaada u dhiibanayso waa inaad eegtaa iyo gogosha tagaysa seexanayso in masku jiro waa inaad iska eegtaa qodobka labaad turkigu kelmadda la yidhaaho genocide ama xasuuq halkuu ka taagan yahay 4 milyan buu ku dilay maxaa ahaydee armenia oo xasuuqii armenia lafaha madaxyadoodu waxay yaalaan magaalada yerevan ee caasimadda dalka armenia yacni markan saa la yidhaaho waxay ahayd almino inay bakistan qaataan bakistan waa dal aan influence badan soomaaliya ku lahayn siyaasaddeeda waa dal xataa mar isaga la kala jaray oo isaga ayaa 27kii waxa ka go'ay 27kii ma xusuusto imka ay tingiina 27kii waxa ka go'ay dalka la yiraahdo Bangladesh guddigii loo saaray mediatorska ahaa Bangladesh iyo Pakistan kala jarideeda mediatorska dhexdhexaadinta ka ahaa Soomaaliya member bay ka ahaa Soomaaliya member bay ka ahaa marka wasiirka arrimaha dibadda waxa Umar Artiqaan in afti laga qaaday dalka la yiraahdo Bangladesh oo saa kaga go'day Pakistan waxa yani ciidad gartaada u dhiibanayso gogosha saxanaysa waa la eega marka wada hadalladu inay wax ka soo bixi waayaan dhinaca Somaliland bay ayay maxaa ahaydeen ayay maxaa ahayd ay ka timi mid kalena waan kuugu daraya marka political negotiation la gelayo wada hadal siyaasadeed saddex qaybood buu ku dhamaadaa oo noqdo qodob waxa weeyaan labada qole is haysa waxa timaado horta qolo saddexaad oo dhexdhexaadinaysa labada qole is haysana qola gar qaadata hatta hadaanay imanin qolo saddexaad labada qole is haysta qola gar qaadata qoladaasi markay gar qaadato qoladii maxaa ahayd garta lahayd laga khaldanaa de waa la kala dhamaadaa waa la ismaac salaameeyaa oo de waa la kala gar qaatay sidii ka dhacday Czech Republic iyo Czechoslovakia dalka loo jeedo waxay dal walaalaha baynu nahay meel lama kala tagayno laba midna oo kala doora inaynu isnacno ama oo inagoo isnacnay oo isdhibsanay aynu kala tagno inaynu inagoo walaalaha ismaac salaameeyno oo aynu isu faataxayno dadna walaalo dariso sidoo diceesho milaxa oo waxaan ku iskuursada oo ganacsigu isku socdo waxba aan isku qabin aynu noqono iyo inaynu isku xumaano inoo kala doora dabadna waxay go'aansadeen inay ismaac salaameeyaan وسيدي Czech Republic iyo Slovakia Republic ay ku kala baxeen si kale ayaa jirto oo iyana la maro oo waxa weeyaan waxa jirtay mar ay isu tageen Gambia iyo Senegal Gambia iyo Senegal waa dad walaalaha absolutely waa aragtay dalka Senegal waa dal weyn waa 15 milyan isaga ku wareegsan Gambia waa xadhig yar oo ku dhex jira Gambia Senegal xagga badda Atlantic Ocean-ka wajahad yar ku leeyahay oo badda way isu tagaan waxay abuureen dal ay dhahay Senegambia waxa kala gumaystay Faransiis iyo Ingiriis waxa dhacay waxay ku hadlaan luqadaha Wolofka iyo Soloningiga iyo Mandinga waxa la qoomiyay
sidaad u joogtood Senegal u socotad Gambia gelisay sidaad Gambia uga baxaysa Senegal gelisay caadi dadku waa labo dalkuna waa hal waxa dhacay markay muddo isku jireen 5 sano ay qolada Gambia tiri warniyow systemkeenu isku galimaayay dadkaas waa dad walaalaha waxa kala duway oo kaliya wana dhibaatada Somaliland iyo Soomaaliya kala haysta waxa kala duway difference colony ayaa jira different colony oo gumaysigu qoloba sibu u ababiya oo sibu dawladnimada ugu tababara qolo waliba systemkiiba ka dhex buuxaya waa dhibaatada Somaliland iyo Soomaaliya ka dhex jirta waxayna warnimayo ana waxaan doonaynaa wax ayaga la noqon waa milyan iyo 500,000 dadka Gambia qoladan Senegal dadka afka Faransiiska ku hadla waa dadka weel baxsan galbeedka Afrika dib waxayna miyaa baxaysan way afti baan idin qaaday idinkaana soo galay markii hore idaan isku darsan imika hadaa baxaysan afti baan idin qaaday afti baa laga qaaday Gambia dadka waxay u codeeyeen inay madax banaanidoodii la noqdaan sidii bay iyaga walaalaha isku macasalaameeyeen tab kalena way jirtaa waa ta saddexaad tabtaas waxa weyn damiiska dushiisa la isku qiyaameeyaayo qolad miiska dushiisa lagu qiyaameeyaa qolada la qiyaamay qiyaamada ku dhacdaana way samirtaayo xalaal caleeg ayaa dhacda hadda fahmaysaa saddexdii midna ma dhicin hadda fahmaysaa marka taas sababaysa Cabdirashiid Qanciyo maxay ahaydeen in wada hadalladu waxba ka socon waayeen marka waxa aan anigu rajaynaya dawladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay imika iyo Somaliland inta miis la isugu tago maaha isugu tagidu maaha maalin iyo laba inta workshop seminar inta miis la isugu tago in maxay ahaydeen si toos loo wada hadlo su'aalahan berigi South Sudan SPLM iyay wada hadlayeen iyo Khartoum marka saddex sanadood la isugu hayo goobta lagu wada hadlay 3 years qolada Khartoum waxay soo jeedisay lagu wada hadlo magaalada la yiraahdo Qaahira waliba best friend bay ahaayeen ninkii loo jeedo John Grant iyo Xusni Mubaarak isagoo saaxiibtinimadiisa u maraya ayuu aad damcayn ugu qancay ninka la yiraahdo John Grant oo Mubaarak uu ka diiday waxay soo istaageen hal lagu qabto Kampala waxay ahayd dalkii dabada Uganda oo dalkii dabada ka riixayay SPLM ee bayskoodu ahaa Khartoumna taa weydiid markii dambe waxa lagu heshiiyay in Nairobi Nibaasha lagu qabto halkaas la isugu tagay markii la isugu tagay qolada Khartoum qolada waxa soo hordegtay SPLM Nibaasha ku degtay hudheel baa loo sikriyay hudheelkii baa qayb la dejiyay qaybtii kala waxa soo degtay qoladii Khartoum Ali Cusmaan Daa madaxweyne ku-xigeenkii baa hogaaminayay wuu soo degay hudheelkii baa loogu keenay waxay nimankan waanu kala xanqarsanayna waanu ishaynaa hudheelka ama anagu waanu ka guur ama iyaga ka rara waa la kala rara shirku markuu 3 cisho socday waxa isdilay oo gacanta isula tagay madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha dibadda ee Suudaan Mustafa Usmaan Ismaaciil iyo Lama Kuul xogeeyo ku-xigeenkii guud ee SPLM markuu shirku ilaa 7 cisho socday waxa isdilay John Grant iyo Ali Cusmaan Daa waxay ahayn bulsho la garanayo waxay isku hayaan iyo isku dilayaan waxa la Soomaalidu ama Somaliland ha joogto ama Soomaaliya ha joogto confuse ma baahna waxa looga baahan yahay labada guriga Hargeysa ee Somaliland looga taliyo iyo fila Soomaaliya guriga Soomaaliya Muqdisho looga taliyo inta la isu tago wax caadi oo ummadda Soomaalida guud ahaan ay ku kala baxdo oo macquul ah ama ay ku midowdo waa in ay ka soo dhaxbaxda ayaan anigu aaminsan bishii hore dalka Soomaaliya waxa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad xilka loo doortay sidoo aragtaa maxaase horyaala oo adiga ku muuqda madaxweyne Xasan Sheekh waxaan qabaa berigi hore 2012 la doortay wuxuu ahaa nin ku cusub masraxa siyaasadda maanta waxaan qabaa inuu yahay political mature qaangaar siyaasadeed inuu yahay baan qabaa 4 sano haysto 4 sanadood oo uu ahaa madaxweyne iyo 5 sanadood oo ciyaarta kor ka daawanay mucaarad waxa laga yaabaa markii hore uu madaxweyne ahaa wax badan inaanu bahasha ka dhaadsanin oo ahaa nin uun jahorad dahab helay oo dabeedna waqtigiiba sidoo uu kaga dhamaaday sidoo marba dhinac uga eegay ama barashadii xafiisyada barashadii diblomaasiyadda iyo xeeladihii iyo magaranaysa siyaasadii ku cusbaa waxay u baahan tahay waqti 5 sanadood oo dambe oo mucaarad kulul ah oo iyana ciyaarta banaanka ka joogay oo experience dheeraad ah maanta uu ku soo noqday madaxweyne Xasan Sheekh waxa loo baahan yahay wixii hore uga khaldamay inuu wax ka barto
waxa maanta taagana sixidooda iyo hagaajintooda inuu isu taago والله madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa u taala arrimo badan dalka Soomaaliya ilaa iyo 1990kii kacaakuf siyaasadeed ku jiray سيف يعني marka laga tago saddex dawladood laba dawladood saddex dawladood TCT farmaajo iyo tiisan cusub سيف يعني intii hore waxa lagu soo handal gareeyay lagu soo dooranayay banaanka dalka عادي عادي isaga mar labaad baa lagu doortay dalka gudihiisa marka waxa weeyaan waxa u taala inuu sameeyo political reconciliation oo Soomaaliya dhexdeeda ka sameeyo dib u heshiisiin siyaasadeed سيف يعني waxa u taala Soomaaliya waxay ognahay waxa jooga imka dhowr iyo 20 kun oo ciidanka la yiraahdo ATMIS marka hore Amazon loo oran jiray sida wararka ay sheegayaan ama ay ognahay hadaan wax isbedelin askariga u dambeeya timeline-kiisu inuu baxay wax weyn 2024 waxaanu waayaragunahay waxa ka dhacay Afghanistan 700 kun oo askari baa loo dhisay dhowr trilyan oo dollar baa ku baxay waynu ogeynaa 7 cisho gudahood bay Taliban ku qabsadeen Ashraf Ghani-na wuxuu cararay Tajikistan imkana Imaaraat buu ku joogaa magangeliyo gurigiisa iyo qasrigii iyo dawladnimadii iyo wixii bana Taliban baa ayaa la wareegtay waxaynu marxaati u nahay waraysigii u dambeeyay Jamaal Cismaan ka soo qaaday nimankan afka duuban ee argixisada waxay dhahaan waanu qabsanaynaa maalin baanu qabsanaynaa bay dhahaan hadii ciidamadu baxaan waana ku talagalkooda marka waxaan qabaa inuu u diyaar garoobo taa oo qorshe ka yeesho inaanu sidii Ashraf Ghani daa cararin taas waan qabaa waxa u taala oo kale hawlo badan baa u yaala hawlaha wax kamid ah in Soomaaliya laga saaro waxaan loo yaqaan 4.5 in la sameeyo constitutional referendum dastuurka afti loo qaado in maxay ahaydeen federal boundaries xuduudaha federaalka maadaama ay dalka Soomaaliya qaateen maamul federaal xuduudaha la kala jeexo xuduudaha gobolada maamul goboleedyadu kala yeelanaya Soomaaliya imka xeebta jasiiro kale ee koonfur galbeed baa laga xukumay siinka dheer hadana waa magaalada Muqdisho gudaheeda ha waxa soo dhan baa u baahan in la kala saaro waxa u baahan maqaamka magaalada Muqdisho waa arrin sugaysa waxa kale jirta arrinta ah isoo qabo si waxa soo dhan maxaa military central command in talis dhaxo military la sameeyo mixed military ay Soomaaliya yeelato waxa uu yaala maxaa ahaydeen hadii uu xukmayo dalkii lacag ma leh inuu lacag ay soo daawacato Soomaaliya inay deyma qaadan karto military embargo inay ka bixi karaan waxa soo dhan baa u yaala waxaasi waxa baart ka ah oo qayb ka soo galaya Soomaaliland waxa baart ka ah oo qayb ka soo galaya Soomaaliland sida in dastuurka afti loo qaado in dastuurka afti loo qaado Soomaaliland la'aanteed ama iyadoo aan arrinteeda meel lagu tiirin ma suuro galayso maxaa military embargo una qabateynta militariga in la qaado Soomaaliland la'aanteed ma suuro galayso laanahu dareen baa jira aad dunidu qabto in haddii Soomaaliya la hubeeyo la qalabeeyo in hubka Soomaaliland lagu weeraro annaguna ka Soomaaliland ahaan waanu qabnaa complaint iyagu waa joogto waanu qabnaa waanu sheegaynaa waxa kale oo u taala 4.5 in laga baxo waxa jooga dhowr iyo 60 xildhibaan Muqdisho oo de magaca Soomaaliland ku qaata xildhibaan dawladda Soomaaliland aanay dirin oo aynu ognahay Soomaaliyana ay ogtahay laakiin Soomaaliya de ay iyadu political issue ay u dirato dadkaasi marka laga baxayo 4.5 ka de meel looga soo codeynaya ma jirto Soomaaliya de sanaaduq lama keeni karo Hargeysa Berbera Burco Laascaano baran lama keeni karo waxay u baahan tahay arrimo u baahan in de Soomaaliland soo hoosgeliyo in deyn la qaato weel banka deyn laga qaato si kaabayaasha dhaqaalaha dalka loogu saxo oo dib loo soo nooleeyo dalka waxay u baahan tahay in wala arkay in dalku kala laalaado hadii la yiraahdo lacag amaahi aynu damacno labadeenu inaynu dukaan u tagno oo labadee lacagna amaahi laakiin la og yahay inaynu hayno ama mid tigadu go'an yahay haduu doono uu duulayo de lacagta ayaa lagu yeelanaya marka Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran lahaa hawlo badan baa ku yaale xaajo hawlaha ku yaala aad ugu fiirso de waxaan ku sidii horena maanta majuur baa tahay waxa maan garanay de laga yeeli maayo wixii ka khaldama maanta waa waxaad u badheedhay
waa tahay ugu dambeyntii maxaad xukuumadda somalilan iyo shacabka somalilan usoo jeedin lahayd adigoo sii raacinaya ganacsatada qaadka somalilan waxay sheegeen in lixda bisha toddobaad wixii ka dambeeyay qaadka etoobiya la joojin doono cidda faa'iida ay ugu jirto iyo waxyaabaha dhaliyey guud ahaan taliyo tusaale ku aadan somalilan waa si wanaagsan qanciyow horta shacabka reer somalilan waxaan maxaa ugu baaqayaa inay nabadgelyada ilaaliyaan dowladnimada ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan siyaasiyiinta iyo buuqooda aanay dhag u dhigin dalku dastuur buu leeyahay dawlad buu leeyahay ciidan buu leeyahay garsoor buu leeyahay inay dowladnimada u hoggaansamaan wixii ay diidayaanna ay cod ku diidaan maalinta lagu soo celiyo talada gacantooda ee ay codaynayaan maalintaa inay diidaan cidna inaanay u samaynin buuq cidna inaanay mudaharaad u samayn cidna inaanay rabshad u samayn wixii danahooda iyo noloshooda taabanaya way ka mudaharaadi karaan waa xaq dastuurku siiyey laakiin cidna inaanay political ideology ugu mudaharaadin ayaan qabaa hadday madaxweyne tahay iyo hadday mucaarad tahayba taasi waa ta shacabka waxaanan odhan lahaa oo kale dalka beerta oo hala beero in wax soo saar saraacaad in la sameeyo ha la isku dayo dunidu cunto la'aan baa laga baqayaa midowga yurub baa maalin dhaweyd in qamadida ku xayiran Ukraine lasoo samata bixiyo dee ka fekerayay dunida qamadi bay u baahatay noloshiina qamadi bay ku soo ururtay qamadiguna dalkeeni wuu ka baxayaa dalka hala beero taasi waa ta shacabka xukuumadda Soomaaliland waxa leeyahay in maxaa ahayde dalka iyo dadka wanaag lagu dhaqo bulshadana loo tudo nolosha bulshadana sidii loo khafiifin lahaa ee bulshadu ay u heli lahaayeen adeegii bulsho sida caafimaadka light jaban biyo ay u heli lahaayeen inay dawladdu ka shaqayso dadku haddii ay waayaan nolol dadku kama duwana yayda duurka joogta dawladnimaan ka shaqayn karin cibaadaan ka shaqayn karin dal baan ka jiri karin dadka in noloshiisa dawladnimadu ay dareemaan inay dawladda wato daryahan waxaan arkayay korontadu aad u qaaliyooday korontadu maxaa Soomaaliland inay ku qaali garowdo maaha guud ahaanna Soomaaliya oo dhan ba inay ku qaali garowdo maaha Soomaalida oo dhan waayo cadceed baynu haysanaa waxay ahayd in solar system dadka ay dawladdu sameeyaan oo banaanka la dhigo oo dadka koronto looga dhaliyo cadceedan iyo hawada soconaysa marka taasi waa ta dawladda oo dawladnimadu waa inay dadka dareensiisaa naxariis halkan baynu joognaayo daryeelkeena caafimaad iyo maxaa ahayd nolosheena guryaha iyo shaqadeena in shaqo aynu helo waxaba dawlad baa dee damaanad qaata marka dawladnimadu waa naxariis haddii aan dadka naxariis la gashanin dawladnimadu ma shaqaynayso dadka waa la boobaya kuwa haystana marka waxaan qabaa dawladnimadu dadka waa in la dareensiiyaa inay waalid u tahay taasi waa ta dawladda tan kale ganacsatada iyo qaadku waa dhibaato Somaliland haysata gaar ahaan waa dhibaato Somaliland aad u haysata guud ahaanna Soomaalida oo dhan haysata shanta gobol ee Soomaalida waa mushkilad aynu adabti garaynay oo aynu la qabsanay dhaqaalaheennina baabiisay caafimaadkeennina baabiisay horta waan arkay maanta qolada qabatay shirka jaraa'idda tii waan joojinay qaadka Itoobiya dollar bayna ku rabaan waa in qaal gareeyaan waa kan horta waxaan oran lahaa waxa fiican marka hore in la iska joojiyo in marka horeba la iska joojiyo haddii Itoobiya leedahay iyo haddii Kenya leedahay daroogo ama Yemen leedahayba daroogo waa daroogo wadankii la adiga waxba kaama gelin marka waxa weeyaan haddiise aan la joojinaynin in la yareeyo ugu yaraan in la yareeyo cashuurta lagu qaali gareeyo wacyigelin la sameeyo dhaqaatiirtu wacyigelin ka samayso culimadu wacyigelin ka samayso bahda sportiska oo aad u qanciyoona ka mid tahay in dhalinyarada wacyigelin looga sameeyo yacni wacyigelintu qayb weyn ayay ka tahay thousands-ka shacabka Soomaalida ah ama kuwa Somaliland ha noqdo ama kuwa Soomaaliya ha noqdo ama kuwa Djibouti ha noqdo ama kuwa Kililka ama kuwa North Eastern Kenya ha noqdo thousands-ka xanuunada waaweyn ee kansarka iyo dhibaatooyinka u jiifa iyo ma garanaysaa waalida dhakhtarada u jiifa intooda ugu badan waxa sababay qaadka marka waxaan oran lahaa qaadka sidiisaba ha la joojiyo haddii la joojin waayana ha la yareeyo aad ha loo yareeyo maxaa ahayd ha la iska daayo ciddii dayn kartaan haddayso ayaan oran lahaa waa tahay dhamaadkii barnaamijkeena ayaynu soo gaarnay waraysiga maanta hoygiisa aynu kula yeelanay siyaasiga cabdiqani ismaaciil maxamed fodcadde oo aynu marti wahay cabdiqani waxaynu kaaga mahad celinaynaa
waqtigaaga maanta aydna siisay waxaan rajaynaynaa wax kastoo siyaasadda somalilan iyo soomaaliya ku cusubba in bulshada soomaaliyeed ay usoo bandhigto waraysiyadanna ay noqdaan bilow howlaheennuna ay halkaa kasii socdaan aad iyo aad baad u mahadsantahay qanciyo media group aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida igu soo booqateen gurigayga iyo waraysiga iga qaadeenba waxaan leeyahay waraysiyadu waa bilow waynu joogtayn doonaa bulshadana maxaa ahaydee soomaalida guud ahaan na wacyigeeda waynu korin doonaa wixii itaalkeena aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa tahay saaxiibayaal guntii gabagabadii barnaamijkaynu soo gaarnay siyaasi Fawd Cadde barnaamijkiisana waxaad ka daawan kartaan beeshkeena facebooka qanciye media iyo sidoo kale barta youtube-kaynu ka leenahay sidoo kale qaar ka tirsan warbaahinta Soomaalida ayaad ka daawan kartaan dhinaca farsamada muuqaalka iyo duubistuna waa saaxiibkeen Cabdullah نور آذن وحنا دمانتين إذن الله نحن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته